waxaa jirta suurad sir ah oo qur-aanka kariimka ku jirta oo qofka mar walba akhrista ilaah ka aqbalo ducadiisa muraadkiisana siiyo caafimaad iyo barako fara badanna laga helo. suuradan ayaa koobsatay siraha qur-aanka oo dhan, bal waa tuma haddaba aayadani. qur-aanka kariimku waa raasamaalka keliya ay haystaan muslimiintu aysan cidi ka xadin, waana hadalkii ilaahay oo daaran siro daahsoon oo dad yari uun ay ogyihiin. waxaana ka mid ah suurad qofka akhriya ilaah ka aqbalo ducadiisa, suurad qofka akhriya ilaah u furo albaabada arsaaqda, suurad qofka akhriya ilaah ka dulqaado murugada, suurad ka bogsiisa cudurrada qofka jiran. laakiinse waa tuma suuradda nebigu sallallahu calayhi wasalam ku tilmaamay suuradda ugu weyn qur-aanka. nebiga ayaa suuradan ku sheegay inay koobsatay sifooyinka qur-aanka oo dhan, wuxuuna sheegay inay leedahay faa'iidooyin aan dhammaad lahayn, waana suurat alfaatixa. suurat alfaatixa waxaa ku jira siraha ugu waaweyn ee qur-aanka ku duugan, aayadaheeduna waxay koobsadeen dhammaan aayaadka kitaabka qur-aanka kariimka ku jira oo dhan. abu saciid ibn almucallaq waxa uu yidhi, waxaan kula jiray nebiga sallallahu calayhi wasalam masjidka, wuxuuna igu yidhi, waxaan ku barayaa aayadda ugu weyn qur-aanka. markaaynu ka baxnay masjidkii, waxaan ku idhi, nebigii ilaahay oo waxaad igu tiri waxaan ku barayaa suuradda ugu weyn qur-aanka. nebigu sallallahu calayhi wasalam waxa uu ugu jawaabay, haa, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. suurat alfaatixa waxay leedahay 7 celcelis, waxayna koobsatay qur-aanka oo dhan. xadiiskan ayaa caddaynaya in faatixadu tahay suuradda ugu weyn qur-aanka. macnaha loo yiri 7 mathaani ayaa ka dhigan 7 celcelis oo u dhigma 7 aayadood ee suuradani ka kooban tahay, oo 7duba macnawiyan iyo siriyanba koobaya kitaabka qur-aanka kariimka oo dil. marka qofku aayadan uu ku akhrinayo salaada, qofku waxa uu hortaagan yahay ilaahay abuurtay, wuxuuna la haasaawayaa macbuudkiisa. waana khasab ah in salaadu si ay u ansaxdo la akhriyo faatixada. waxaana loo sheegay nebiga in suurat alfaatixa aan lagu soo dejin nebi ama rasuul kale oo ka horreeyay calayhi salaam. nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi, waxaan ku dhaartay ilaaha naftaydu gacantiisa ay ku jirto, laguma soo dejin towraadda iyo injiisha iyo sabuurtaba ama aayad kale oo qur-aanka oo u dhiganta faatixada. waxaana ku jira 7 celcelis oo koobsaday kutubta oo dhan, waana iftiin la siiyey nebiga oo aan nebi kale la siin. markii la berayay suurat alfaatixa nebiga sallallahu calayhi wasalam, waxaa samada ka soo degay malag aan horay u soo degin, wuxuuna ku yidhi, ku bishaarayso 2 nuur oo lagu keenay waana lagu soo dejin nebi kaa horreeyey, waana faatixada iyo dhammaadka suurat albaqara. laakiinse maxaynu ka astafiidi karnaa suuraddan weyn dunidan aynu ku noolnahay korkeeda? waxaana jirta fursado badan oo aynu ku isticmaali karno ama aynu uga faa'iidaysan karno. marka koowaad, waxaa ilaah ka faydaa qofka akhrista murugada iyo fekerka nafsaaniga addoomihiisa, waxaana ilaah ku daaweeyaa addoomihiisa xanuunsan ee la ildaran xanuunada kala duwan. wuxuuna nebigu yidhi, waxay daawo ka tahay cudur walba. waxaana ka mid ah siraha ugu waaweyn ee ku jira suurat alfaatixa ee aysan dad badani ogeyn in qofka akhriya ilaah siiyo muraadkiisa. waxaana sugnaaday in qofka xaajo ay ku adkaato ay habboon tahay inuu akhriyo mar walba ilaa inta uu muraadkiisa ilaah sahlayo. waxaa kale oo sugnaaday inay tahay ruqyo ku filan oo laysku daaweyn karo, waxaana daliil u ah qisadii dhex martay nebiga iyo saxaabtiisa ee uu soo wariyey abu saciid alkhudri radiallahu canhu. waxa uu yidhi, waxaa annaga oo socdaal aan martinay qolo qaryad deganayd, waxaana jirraday sheekhal qabiilkoodii. wayna noo yimaadeen, waxaynana weydiiyeen, maydinku jiraa qof daaweyn kara ama ruqyeyn kara sayidkanaga? waxaan ku nidhi, haa, aniga ayaa aqaano daaweynaya. waxayna nagu yidhaahdeen, noo daawey. waxa uu ku yidhi, waan daaweynayaa, laakiin waxaan rabaa ajuuro. waxay yidhaahdeen, waxaan bixinaynaa 30 neef.
waanu tegey waxaanan mariyey gacanta waxaanan ku akhriyay suurat alfaatixa ilaah inta uu ka caafimaadinayay. waxaanan kaxaysanay xoolihiina la siiyey waana laysku qabtay oo waxay dhaheen qaar ka mid a asxaabtii laba taabsanayo xoolahan ilaa la weydiiye nebiga xalaalnimadooda. markii aynu nebiga u bandhignay arrinkii ayaa nebigu ku yidhi ayaa kuu sheegay in faatixadu ay daawo tahay, qaata oo qaybsada qaybteedana ii dhiga ayuu yidhi nebigu. xaggaa waxaa ka cad in nebigu caddeeyey in faatixadu daawo ay tahay, ilaahna waxa uu siiyaa muraadkiisa qofka akhriya. ilaah waxa uu ku yidhi xadiis alqudsi, salaadu waxay ka dhaxaysaa aniga iyo addoommahayga, nus aniga ayaa leh nusna addoonkayga iyo waxa uu weydiisto. muslimiin badan ayaan aqoon u lahayn faa'iidooyinka ku jira isticmaalka maalinlaha ee suuradaha qur-aanka kariimka iyo siraha ku duugan. suurat alfaatixana waa suuradda ugu weyn qur-aanka kariimka, waxaana habboon in qofku mar walba uu akhristo. ilaah inagama xarimo fadliga siraha qur-aanka kariimka ee u sii gudbi asxaabtaada.